waxaa jiri jiray nin ku noolaa caasimadda Soomaaliya wuxuu lahaa laba xaas mid carruur ayay lahayd mid kalena wax carruur ah ma lahayn oo weligeed wax ma dhalin ninkii waxa uu badnaa midii carruurta lahayd dhankeedii tii kalena waxay ahayd mid keli ah midii carruurta lahayd ayaa mar walba ku digan jirtay uguna faani jirtay carruurteeda iyo in ninkeeda uu jecel yahay mar walba ay wax uga baahato waa ay diidi jirtay in carruurteeda ay wax u dirsato ninkii waxa uu ku nacay ilmo la'aanta waxa Ilaahay qadaray in maalin maalmaha ka mid ah midii carruurta lahayd in Allah kulli ka wada qaado midii kalena uu siiyo oo aan weligeed waxba dhalin muddo kadib waa ay xanuunsatay midii carruurta Alle ka qaaday waxayna u baahatay midii kale carruurteeda in ay saacidaan adduunyadana waa sida xaalkeeda qofna weligaa ha ku digin ma ogid in aad bari u baahan doontid